Layla Cali Cilmi waxay dhalatay 16 Janaayo sanadii 1988 waxay waxbarashadeeda ku qaadatay wadanka Sweden. Waxay ka tirsan tahay haatan xisbiga Green Party. Layla 2018 waxay ka mid noqotay baarlamaanka dalkaasi Sweden iyadoo noqotay gabadhii ugu horeysay oo xijaaban oo muslim ah oo ka soo jeeda bariga Afrika khaas ahaan Soomaaliya oo ka mid noqotay baarlamaanka dalkaasi Sweden. Waxaa xusid mudan in iyadoo ku kortay wadankaasi Sweden ay si fasaxa ugu hadasho luqadda Soomaaliga. Ilhaan Cumar waxay dhalatay 4 Oktoobar sanadii 1981 waxay ku dhalatay magaalada Muqdisho. Sagaashanadii ayay u qaxday dalka Kenya waxayna qaxooti ahayd 5 sano. 1995 ayay tagtay dalka Mareykanka. 2012 ayay bilowday bogga siyaasadda. 2016 ayay ku guuleysatay xubin baarlamaan oo gobolka Minnesota. waana gabadhii ugu horeysay oo xijaaban oo muslim oo Afrikaan ah haddana Soomaali ah oo qaxooti ah ee gashay kolaha Koongareeska. waxayna ka yaabisay dhammaan caalamka oo dhan waxayna ku dhiiratay inay ka hor imaato cunsurinimada uu kula kacay Donald Trump muslimiinta. waxay noqotay gabar ay ku faanaan muslimiinta dunida oo dhan waana guul u soo hoyatay Soomaalida oo idil. Maxamed Mukhtaar Jaamac Faarax wuxuu dhashay 23 Maarso sanadii 1983 wuxuu ku dhashay magaalada Muqdisho isagoo 8 sano jir yimid wadanka Britain. waxa waxbarashadiisa uu ku qaatay Britain halgan badan kadib wuxuu ka qayb galay ciyaarta orodada ee Olombikada. January 2009 wuxuu dhigay iskoor cusub oo ahaa 3000 mitir wuxuuna ku guuleystay bilado badan oo dahab ah waana orodyahan u tartama dalka Ingiriiska laakiin asal ahaan ka soo jeeda wadanka Soomaaliya. Axmed Xuseen waxa uu dhashay sanadii 1976 waxa uu ku dhashay magaalada Muqdisho. burburkii ayuu u soo qaxay magaalada Mombasa kadib waxa uu wareegay magaalada Nairobi. 1994 ayuu yimid Canada wuxuu waxbarashadiisa ku qaatay Canada iyo Mareykanka. halgan badan kadib waxa uu ku soo biiray xisbiga lagu magacaabo Liberal Party. waxa uu noqday wasiirkii ugu horeeyay oo qaxooti ah haddana muslim oo Afrikaan ah. 10 January 2017 ayaa loo doortay wasiirka socdaalka. ilaa hadda dunida waxaa ka yaabisay hal adeegiisa iyo xaqiijinta hadafkiisa adag isagoo qaxootiya oo dalka ku yimid qaxootinimo. waad ku mahadsan tahay daawashada muuqaalkan. fadlan haddii aad channelka ku cusub tahay subscribe saar furana gambaleelka si uu kugu soo dhaco muuqaal walba oo soo dhigno. mahadsan.